qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa cambaareeyay madaxweynaha dalka Faransiiska oo difaacay in la baahiyo sawir lagu tilmaamay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Cambaareynta iyo falcelinta ka dhanka ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron inta badan wadamada Islaamka ayaa sii xoogeysatay kadib markii madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu dhawaan su'aal ka keenay caafimaad qabka maskaxda madaxweynaha Faransiiska, iyadoo sidoo kale dhowr dal oo caalamkana ay dalbadeen in la qaadaco alaabta laga soo saaro dalka Faransiiska. baraha bulshada ayaa waxaa hareeyay dhaleeceyn loo jeedinayo madaxweyne Macron, waxaana si weyn looga cambaareeyay dalal ay ka mid yihiin Ingiriiska, Kuwait, Qatar, Falastiin, Masar, Algeria, Jordan, Sacuudi Carabiya iyo Turkiga. Ololaha baraha bulshada ee Facebook ayaa horseeday in dhowr urur oo ganacsi oo dalal Carbeed ay leeyihiin inay ku dhawaaqeen qaadacada alaabta laga keeno dalka Faransiiska. khilaafka u dhaxeeya Faransiiska iyo wadamada Islaamka ee ka dhashay markii toddobaadkii hore wiil dhalinyaro ah uu ku gowracay macallin lagu magacaabi jiray Samuel Paty oo 47 jir ahaa meel u dhow magaalada Paris, iyadoo macallinka uu ardayda u soo bandhigay sawir gacmeed uu ku tilmaamay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxaana dhowr wadan oo caalamka markaasi ka socda lagana abaabulaya banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha Faransiiska. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa u yeertay safiirkeedii u fadhiyay dalka Faransiiska inuu yimaado magaalada Islamabad si wax looga weydiiyo hadalka ka soo yeeray madaxweyne Macron. dhaleeceyntii ugu cusleed ayaa Faransiiska waxa uu kala kulmay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiskana ay dib ugu yeertay safiirkeedii u fadhiyay magaalada Ankara.